السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونهتديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام كدب ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan inay ka qayb qaataan walaalaha beledweyne gobolka Hiiraan dhibaatadii fatahaadda iyo webiyada sidoo kale magaalada Baardheere gobolada Jubbaland iyadana waxaa ka dhacay masiibo fatahaadii webiga iyo daadadkii marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay haloo gurmado walaalaha muslimiinta meel walba joogtaan. bismillah mawduucayga haddaan bilaabo mawduucayga wuxuu ku saabsan yahay Tawfiiq Islamic Center iyo xaaladihii u dambeeyay xaguu marayaa hawshiisii halkay maraysaa waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto usoo gudbinayaa kaliibka kan oo aan kaga hadlayo maxaa ugu dambeeyay Tawfiiq Islamic Center iyo isqabqabsashadii xagay maraysaa xagee la isla gaaray waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto u sheegaynaa in Tawfiiq la isla aaday maxkamadii kadib markii nimankii ka yimid Denmark iyo Finland ay heshiisiin waayeen labadii kooxood ee isku haystay gacan ku haynta masaajidkii Ilaahay. anigu hadda masaajid Ilaahay dhimay meeshaas waxay noqotay meel muqaayad ah maqaayad ay rag ku shaqaystaan maqaayada ka furan maktabada ka furan dumarkuna ay dukaamo ka furteen dharka iyo lagu iibiyo barfuunada dahabka iyo saacadaha. inta aan mawduucayga u gelin waa inaan dadka Soomaaliyeed u sheegaa anigu kumaan ahay. aniga waxaa la yiraahdaa Axmed Nuur Sheekh Cabdullaahi waxaan deganahay Oslo Norway waxaan ka tirsanahay Tawfiiq Islamic Center markaskan la isku haysta 6 sano u dambeysay oo laba group ay isku haystaan oo aan ehel u ahayn. ehel uma aha marka aan leenahay ma aha niman diin yaqaana waa niman calooshood u shaqaystayaal ah oo soo shaqo tagay. waxaa la yaab leh oo aan maanta rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan iridada ooga qaado oo aan u faydo. waxaa sidoo kale la isku haystaa oo buuqu ka dhacay masaajidkii Quba ee ku yaalay xaafadda Hays oo halka kan aan lacag uga gureynay muddo 10 sano ah. waa inaan marka dadka Soomaaliyeed u sheegaa masaajidda Yurub ku yaala ama waqooyiga Ameerika maxaa la isku qabsadaa sababta keentay in la isku qabsado maxay tahay ummadda Soomaaliyeed baan u soo bandhigayaa. sanadkii 2013 waxaan tagay magaalada Toronto ee waddanka Canada xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay Dixon. waxaa la iga sheekeeyay Khalid bin Walid oo 2 kiiloomitir xaafadda u jirin in Aadan Ciise iyo nin la yiraahdo Bashiir Shiil anu ninna sheekh oo ma yara la socda nin walba isaga naftiisa sheekh waa anu ninna sheekh ugu yeeri maayo. man sharafa nafsuhu fa huwa sharif bay carabtu dhahdaa marka nimankan waa magacyo taytalla la iska qaatay ee nin walba magacaygaas oo kale uu leeyahay Axmed Nuur iyo Cali Maxamed Saalax iyo Mustafa iyo Aadan Ciise iyo Maxamed Cabdi Umar iyo laakiin taytalkan la iskaga qoranayo waxba kama jiraan ee godkana la geli maayaan ayaan leenahay. marka bataatanba wax sheekh leeyahay oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ma jirto
arrintaa waa in meel aad ku qorataan. haddaan usoo laabto Toronto, waxaa la iiga sheekeeyey masaajidka ugu horreeyey ee dadka Soomaaliyeed ay dhistaan oo ay yeeshaan wuxuu ahaa Khalid bin Walid. anigu waan ku tukanayay markaan tegey, labadii gooreen tegey, 17kiina waan tegey, 13kiina waan tegey. waxaa la iiga sheekeeyey masaajidkaas markii la isku qabsaday, dadka Soomaaliyeed waa qabiil. waxaa la yidhi labada nin ayaa is haysata. marka waxaa la yidhi markii dambe sheekadii way isgediday. waxaa la yidhi ogaadeen iyo waxaa isku haysta majeerteen. waana niman culumo ahoo waxaa la isku qabsaday diin ma ah, waa hunguri walaalayaal. horta meesha dadka Soomaaliyeed waa inaan u sheegnaa, masaajida la isku qabsado waa dhaqaale ee ma aha qabiil. dadka Soomaaliyeed waa inaan saa u fahansiinaa. anigu Axmed Nuur baa leeyahay, dadka walaalaha ee magaalada ila degan ee xataa aan anigu wax ka sheego maalin walba waan isa salaanaa, isdaba marraa, dagaal nagama dhexeeyo. waxa la isku haysta marka waa politics, welibana politics ma waa hunguri, waa dhaqaale walaalayaal, economic waaye. marka ninkan la leeyahay waa sheekh ogaadeen ama waa sheekh majeerteen, waa beene sheekh ma ahe, waa nin soo shaqo tegey oo adiga iyo carruurtaadu rabaa inuu lacag idinka sameeyo. dadka Soomaaliyeed horta waa inay saa u ogaadaan. Bashiir Shiil iyo waxaa isqabsadaa la yidhi aadan ciise. waxaa la yidhi Canada marka waxaa la afgambiyaabaa la yidhi marka xajka iyo ay u sii qaadaan nimanka markaa imaamiyada ku qoran oo markaa magaca titleka haysta. marka laba nin baa la iiga sheekeeyey markaan Canada tegey. waxaa la yidhi ninkii la yidhaha Bashiir Shiil jamaacu sii qaaday, xajku aaday, bil buu maqnaa. masaajidkii wuxuu yimid la afgambiyey oo uu haysta ninkii la yidhaahdo aadan ciise. waa la isdacweeyey, waa la isqabqabsaday, maxkamad baa la isla koray. Bashiir Shiil wuxuu sameeyey Soomaalidii kale oo dhan oo majeerteenka aan ahayn ayuu isbahaysi ka samaystay. aadan ciise dacwadii markii la isla tegey 2 baa la diray ninkii aadan ciise ahaa. aadan ciise ciil buu u baktiyey, wuu orday, wuxuu yidhi tolla ayaa majeerteen ah. tolla ayaa majeerteen hadduu yidhi magaaladiibu ku dhex dhacay, dumarkii Soomaaliyeed iyo dadkiibuu ku dhex dhacay. wuxuu yidhi dahab iyo lacag iyo waxbuu ururiyey. markas 2 kilomitir aan u jirin oo la yidhaahdo daarul hijra. wallaahi anu labada waan ku tukaday. nus kilomitir baan u malayn, adiga 700 tallaabo ayaan u malaynayaa inay isu jiraan. dhanka galbeedka ayuu ka xigaa wadada Kiblen Avenue baa labadaba mar, labada masaajid ba Kiblen Avenue. dhankana waxaa kaa qabanaya Salaama, meeshii la fariisin jiray Salaama Pizza Hut meel la yidhaahdo, oo nin la yidhaahdo laba nin baa iskale, nin la yidhahdo Mustafa iyo nin la yidhaahdo waxaa iskale Burhaan, meeshaas xarunta ganacsiga. marka waxaa dhacday ninkii wuu orday, markas ayay sameeyeen isagii asxaabadiisii. qabiilka inuusan waxba ahayn baan idiin sheegayaa, wallaahi bilaahi inaan idiin sheegaya. qiyaamadan inaan qabiil lala tegaynin baan idiin sheegayaa maanta. aadan ciise tolla ay buu yidhi, dadkii Soomaaliyeed buu ku dhex dhacay, bulshadiisii buu u qayliyey. wuxuu yidhi tolla ay, wuxuu yidhi maanta bannaankaa lay dhigay, maxkamadiina waa iga adkaatay, masaajidkiina waa layga caydhiyey. meel aan u malaynayo 1.5 kilomitir oo galbeed ka xigto daarul hijra uu bixiyo. weliba daarul hijra wuxuu ugu bixiyey baa la yidhi waxaan ka soo haajirnay, inagu waxaynu naqaanay maka oo laga haajiro oo mushrikiinta looga haajiro, oo madiine uu rasuulku yidhaahdo meel baan ku riyooday sallallahu calayhi wasallam. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah ninkaas daarul hijra u bixiyey sanad isagoo ayna ka soo wareegin oo markiiskii ku shaqaysanaya ayaa isagiina la afgambiyey. nimankii laftoodii isku qabiilka ay ahaayeen ayaa afgambiyey. soo waxaad garateen maa in maadeerayaalo ama saaxiibadayda qaaliga meel walba joogtaan. waxaa dhacday marka ninkii, anigu waxaan tegey 2017 baan haddana tegey. anigu markaa hore 6 bilood soo joogay oo qisada la iiga sheekeeyey. markii dambe Kuwait bay ahayd, markii hore intay Kuwait bay ahayd. marka la isqabsanayana waa 1997 ama 2007kii qiyaastii meelahaasaan u malaynayaa inay ahayd sida la ii sheegay. aniga Canada
2013 baa igu horeysay haddana 17 baan ku noqday mar waxaan soo joogay 6 bilood marna 4 bilood baan soo joogay booqashaan ku tegey marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah waan ka tegey waxaan aaday si aan xog u soo helo masaajidkii laga cayriyey ninka la yidhaahdo Siciid Raage masaajidka waxaa la yidhahdaa Abu Hurayra wuxuu ku yaalaa bariga magaalada Toronto xaafad la yidhaahdo Scarborough Center ayuu ku yaalaa masaajidkii inta aan xaruntiisii Sakina Center tegin ayaan masaajidka tegay si aan xog u helo waxa meesha ka socda inaan ogaado waxaa la yidhi sheekhi waa la afgambiyey isaga oo ku maqan xaj mase cumro waxaa afgambiyey ma taqaanaan nin Axmed leeyahay habar jecladu waxaad la socotaan wadamadan way ku badan yihiin maxaa yeelay siimaanay ahaayeen aabayaashood baa siimaanaha marka saasay ku yimaadeen aad bayna isu keenaan haddeertaana intuu haystay ninka la yidhaahdo meeshaan maamulkan jeegaanta intuu haystay ninka la yidhaahdo Siilaanyo ayaa badda aad loo soo mariyey oo lacag fara badan lagu bixiyey sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud markii uu haystay maaragtay Soomaaliya waxaa maaragtay iyadana aad u soo baxay oo soo tahriibay abgaalka lacagtana waxaa bixinayay labadaas maamul ayaa bixinay waa la wada ogyahay ummadda Soomaaliyeed dad fara badan oo ku leedayna way jiraan kuwaas nasallallahu alcaafiya ilaahay cafin baan u weydiinaynaa waxaa dhacday marka xog baan raadiyey waxaa la igu yiri nin la yiraahdo Axmed oo habar jeclaa afgambiyey oo hadda haystoon anigu xataa xafiiskiisa aan la fadhiistoon la sheekaystay marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah halka kan way ka duwan tahay marka Yurub way ka duwan tahay waa la isfahmay xaj iyo cumri iyo waxa doonta aad laakiin cid ku afgambinaysa ma laha Ali Maxamed Saalax meeqa jeer buu sanad walba xaj iyo cumru dad geeya cid afgambinayna ma jiro marka haddaan tawfiiq u soo noqdo meeshan waxaa isku haystay laba labada group waa isbahaysi dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan group waa isbahaysi waa hawiye iyo door waxaana la sameeyay 2000 iyo qiyaastii 15 baa la sameeyay guddigii ku meel gaarka ahaa Faysal Goox Usmaan Bahdoon Axmed Sheekh Khaliif Siyaale Mahad Fuaad Yare Cabdi Ali Cabdi Kariim todobada nin oo todoba qabiil oo Soomaaliyeed ka soo kala jeeda ayaa waxay sameeyeen waxa la yiri si maaragtay aan uga cayrano nimanka majeerteenka baa la yiri specific majeerteenka sababtay tahay iyaga ugu minbar badnaa waxa la yiri habeen madow baa la shiray waxa la sameeyay isbahaysi dadku waa taqaanaan maalinkii dadka Soomaaliyeed maalinkii baa la shaqaystay habeenkiina waa la seexdaa nimankan waxay sameeyeen habeenkii saddexda habeenimo iyadoo la jiifo ayaa waxay sameeyeen isbahaysi ka kooban iidoor iyo hawiye ragga sameeyay baan markay idin sheegayaa caawa loo kala bixi maayo insha Allah wixii information aan hayno dhan banaankan caawa soo dhigaynaa la nakhafu lillahi lawmata laa'im waxaa sameeyay isbahaysiga nin la yiraahdo diiriye luga dheere kow Axmed Abuukar Cumar Cadaani laba Axmed Abgaalow odayga weyn oo Abgaal oo fadhiya safka hore masaajidka Muuse Dheere oo habar jecla ah waxaa sameeyay oo habeenkaas soo jeeday Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun Mustafa Joker waxaa ku jiray raggaas Bahdoon waxaa ku jiray Cabdi Kariim waxaa ku jiray ninka la yiraahdo waxaa ku jiray ninka la Cabdullaahi Hoolmaliya waxaa ku jiray jaamac burco waxaa ku jiray burco Cabdullaahi burca ku jiray waxaa ku jiray ninka la yiraahdo Barre ciida gale waxaa ku jiray ninka la yiraahdo Cabdi Xakiin wakiilka Faysal Cali Waraabe waxaa ku jiray Axmed Qare
gacan yarihii ninka la yiraahdo Yuusuf Indha Cadde waxaa ku jiray Zakariya Indha Guduud waxaa ku jiray Qays Yuusuf baa ku jiray waxaa ku jiray nin la yiraahdo raggaan idiin soo sheegayo waxaa ku jiray nin la yiraahdo waxaa ku jiray Fuaad Gabiley waxaa ku jiray Maxamuud Xaaji Ibraahim dadkaan idiin sheegayo oo 20 qof ka badnaa waxaa go'aan lagu gaaray in daaroodka laga cayriyo masaajidka Tawfiiq Islamic Center gar iyo gardarraba soo waxaad garteen ma aha waxaan idin leeyahay waxaa go'aan lagu gaaray gar iyo gardarraba in laga cayriyo guddiga marka kumeel gaarka waxaa ku jiray 2 nin oo yeesmaana oo magaca qabiilka ku jooga waxayna kala ahaayeen Mahad iyo Axmed Khaliif Siigaale labadaa nin waxba ma qoraan waxba ma akhriyaan waa niman lagu adeeganayay ahaayeen soo waxaad garateen ma aha waxa markii la sameeyay wax doorasho weeg baa la sameeyay magacyadii baa la isku qasay waxa la yiri berri marka 2 bisha October 2016 marka la gaaro magacyada la soo gudbiyo ee hadda isku dhaxqasan ee la yiraan la kala garin 22 ah waxaan samaynaynaa magacyada hawiyaha iyo iidoorka ayaan soo kormarinaynaa 1 ilaa 22 si qofka codeynaya ee Soomaaliyeed cid walba leh isagoo degdegaya taxi baa la wataa waa la shaqeynayaa 5 galabnimo la isbeelaniyay waxa la yiri dadku waqti ma hayaan marka 22 qof ugu horeysa magacyada aan idin soo sheegnay ka dhigaalay magacyada waa marka qof walba oo dhagdhag ka siiyay kuwii kalena we left behind baa la yiri kuwa kalena waxaan kaga tageynaa gadaal yaa soo baxay marka groupkii Qays yaa soo baxay waxaan idin sheegayaa weligiin ma aragteen waagii hore waxaa la dhihi jiray 4 iyo bar taa macnaheedu waxa weeyaan 4 daarood 4 hawiye 4 dir 4 digil iyo merfle saddexna waa inay noqdaan beelaha saddexaad oo qoryoolay iyo ay ka mid yihiin ninka le Cali Maxamed Saalax iyo waxyaabaha la yaab kale dhacay baa waxay ahayd marka ummadda Soomaaliyeed aan idin soo bandhigay waxyaabaha la yaab kale dhaca waxay ahaayeen dadkii Soomaaliyeed waa la yaabay waa la isaga daayay waa la iska aamusay 2 sano gudubtay waxa meesha ku soo baxay marka halkan aan idin ka tirinayaa inta aan aqoonin magacyada ma aqaanaba laakiin inta aan aqaanaan idin sheegaya oo labada dhinac ah guddi waxa soo baxay 22 nin ah oo 2 nin oo beeshaas hadda magaceeda aan sheegay ee la yiri masaajidkeena ka tuuraynaa oo Cabdullaahi Dheere Cabdullaahi Caan nin la yiraahdo iyo nin la Cabdifataax Aadan Xasan labada nin ayaa soo baxday labadii nin beeshii waxay yiraahdeen nama matalaan way soo tuureen waxa la yiri anaga nama matalaan anagu kuma jirnaa la sideedaba maadaama la ogaaday in loo heshiiyay waxay yiraahdeen beeshu kuma jirno labadan waxay ahaayeen nin ogaadeen Cabdullaahi Dheere iyo nin dhulbahantaa oo la yiraahdo Cabdifataax Aadan Xasan labadii nin beelihii way diideen iyo initiative-koodii waxa la yiri anagu waxay yiraahdeen doorashaan ku imaanay anagu qabiil oo ma shaqeyno anagu walaalahan la shaqeynaynaa marka labadoodii baa hadana la khiyaamay daya fiiri qabiilku inuu soo waxba lahayn baan idin sheegaya maanta ummadda Soomaaliyeed labadoodii ayaa la khiyaamay yaa khiyaamay waxaa khiyaamay 9 nin oo iidoor ah iyo 10 nin oo hawiye ah oo meeshii dadkii la xarxariiqay ahaa ayaa waxay yiraahdeen iyagii bay u gambiyeen oo waxay yiraahdeen iyagoo naga maqan aynu guddiyada samaysano guddiyada maxaa ka mid ah 22 nin waxaa la rabaa guddi dacwo kow guddi dhaqaalaha ah oo maaliyadda ah guddi arrimaha bulshada guddi nadaafadda ah iyo qabanqaabada mu'tamaraadka iyo waxyaabaha noocaas muxaadaraadka iyo guddi waardiyayaasha iyo waxaas muqaaxiye iyo meelahan de ganacsi bay ka samaysteen nimankan muqaaxida iyo maktabada iyo
kuwa dhaqaalaha uga soo ururiya iyo haweenka haddee shalmadaha iyo dahabkii ku wareejinaya dad uga soo gura lacagta shan guddi baa la rabay marka waxay sameeyeen marka waxay doorteen guddoomiyihii yay u doorteen cabdiraxmaan kulan oo aniga saaxiibka oo aan wada shaqaynaynay guddigii waalidiintaan ka wada tirsanayn 2015 ilaa 16 ayaan wada ahayn ninka la yiraahdo cabdiraxmaan kulan waa gudoomiye ku-xigeen yaa laga dhigay wakiilka Faysal Cali Waraabe ninka la yiraahdo Cabdixakiim qare waxaa laga dhigay gudoomiye ku-xigeenka labaad daya maaliyadii waxaa loo dhiibay ninka la yiraahdo Qays oo maaliyadna aqoonin waxbana ka baranin guddigii dacwada yaa loo dhiibay ma taqaanaan nin mawlid la yiraahdo laa yaktub walaa yaqra oo haddana xajka loo dhiibay isagii Axmed Sheekh oo isagana laa yaktub walaa yaqra Axmed Sheekh Khaliif laa yaktub walaa yaqra dad juhala ah oo qaarkoodna sirdoonka Itoobiya ay u shaqeynayeen sida Axmed Sheekh Khaliif oo kale oo aan anagu xaqiijinayno nahayno cadayntii sirdoonka Itoobiya ayuu haddana u shaqeeyay Axmed Sheekh Khaliif Tigreegii horena uu shaqeynay haddana Oromadu u shaqeeyaa kooxdii isdhiibtay Oromada isu dhiibtay oo aan la ujeeda xun ayuuna u shaqeeyaa maadaama nin adeerka in Umar Dacayl uu haysto nimankii fashilmay ee isdhiibay iyagoo bustayaasha wata laga soo dajiyay jigjiga marka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo aan idin soo bandhigaya caawa markay arrintaas u dhacday Cabdullaahi anagu nala tashaday dadkii ogaadeenka uu diiday yarkii dhulbaantaa isaguna uu diiday wuxuu yiri anigu ilaahay dartii baan u shaqeyn anigu xataa waxba kama rabo nimankii waxaa lagu soo qoray waa niman aan talada waxba ku lahayn oo aan joogin miiskii wax lagu go'aaminayay war xataa hadduu qofku minority yahay laakiin waa in uu cod leeyahay marka fiiri dibadii baynu joognaa baarlamaankii Soomaaliya iyo kana kaliita wallahi wa billahi wa tallahi baan idin sheegayaa masaajidka tawfiiq meel kaliidata inaan caawil la helaynin caalamka masaajidka xirmaayo oo maanta maxkamad ay taalo oo ilaa sanadkii hore anigu aan qeeliyo YouTube u samaystay in wax la hagaajiyo nimankii waxay yiraahdeen waxaana lagu qoray bay yiraahdeen waardiyaha iyo nadaafadda nimankii iyaga laftooda xishooday nin walba shaqo toob oo nina dhaqaaluhu ka shaqeynaya xawlaad buu haystay nina iskuul buu macallin ka ahaa waxay yiraahdeen maxaan ku shaqeynaa bay yiraahdeen nin walba isaga dantii qabiilka xataa iyagoo diiday ayuu nin walba dantii isu casilay waana la ogyahay waa kana way joogaan waa la weydiin karaa nimankii hadday is casileen waxaa dhacay in Mustafa uu habeen iyo maalinba seexan waayo oo masaajidkii mikrofoonkii la isla qabsado oo la yiraahdo beel weyn baa ka maqan oo nimankii ma jeerteen munaafaqada yaqaanaane meel walba ay la istaageen miidiyihiin meel walba ay la istaageen meeshaas meel la isku waafaqsan yahay maal ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa ma aha anagoo aan qeyliyinba anigu hadda goormaan bilaabay 2018 baan qeyladan bilaabay October tan hadda aan la hadlay October teedii kale aan qeyladan bilaabay ma jeerteen goormay bilaabeen 2000 iyo weliba masaajidka iyagu ka bilaabeen in mikrofoonka ay dad kula dhagaan ayay bilaabeen waxa dhacday marka ummadda Soomaaliyeed aan idin soo gabagabeeyay wixii noocaas aaba horta la sharciyay waxa dhacday marka Mustafa Xaaji Ismaaciil uu seexan waayo oo uu hurdo uu waayo oo la yiraahdo beel baa ka maqan laba beelood ilaa meeshii beel weyn baa ka maqan oo midda kale beel kaliya ma aha war hadda cadaaladda ayaan ka tagin afar beelood iyo barbaa lagu qaybsanaya waxaa maqan diil iyo mirif iyo daarood iyo waxaa maqan iyo beeshii shanaad laba beelood iyo bar baa maqan maadaama laba beelood iyo bar ay maqan tahay baashu dhinac bay marka ka raran tahay chief iyo joogba marka way waayeen waayo Mustafa Xaaji Ismaaciil meeshan imaam kama aha guddiga waqafku ku qoran yahay guddiga waqafka hadda ka hor nimankii burburiyay ahaayeen guddiga ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed ka wada muuqatay 4.5 ka lagu wada qanacsanaa nimankii lagu qabtay ay ahaayeen guddiga waqafkana boqol jeer baan idin sheegay waxa ugu weyn Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun
علي محمد صالح آذن معو فؤاد قبيلي حسن عبد المرسل حسن مذوبي أما حسن قلتي محمد قريولي محمد بوعر محمد دقنة محمود حاجي إبراهيم يا برالة طبعا كان أيا وقف كأنتي سبدا ما تشوكتو رجت شوكا مركبان دين شيء ومساجد كبربولية أو قصية محمد بوعركو مصطفى حاجي إسماعيل علي محمد صالح فؤاد قبيلي ninka la yiraahdo buraale shantaa nin baa joogta waxaan iloobay ninka gudoomiyaha u ah oo nin guriyo jabinaya oo lacag badan na dhacay aadan macow lixdaa nin baa joogta inta kale waa maqan yihiin ma joogaan wadanka maxamuud xaaji ibraahim wuu guuray hargeysu degan yahay xasan cabdi mursal wuu guuray ingiriisku degan yahay isagii reerkiisa mana yimaado lacagta halkaasa loogu geeyaa محمد قريولي انت بدل ما تشوفه marka ragga noocaasa ayaa lugaha qabtay gudigii hore gudiyadan hadda iska soo qoro ciyaal suuqa banaanka laga soo waraarinay ii buuxida waa ragga ka dambeeya weeye walaalayaal ummadda Soomaaliyeed allow yaana ka kala taginay markay halka mareysay waxa dhacday marka labadii sano iyagoo kuwiina ayna shaqaynin oo lagu hadlaysto ayay ku dhamaatay 2018 October ayay dhici lahayd doorashada kale doorashadii waa la isqabsaday dacwa bilaabatay dacwadii inta socotay waxay noqotay doorashadii dambe booliis in loo yeero oo mikrofoonka la isla qabsado markan dambe way ka duwanayd waayo lacagtii la qaadanayay ee masaajidka lagu kabaayay oo 2 milyan sanadkiiba 2 milyan oo karoon adiga waa 200 kun oo dollar lacagtii baa la jaray lacagtii hadii la jaray de meesha manika marka taala maxaa meesha lagu hayaa waxba meesha lagu ma hayo xagee lacag laga helayaa waxay noqotay in haweenkii carruurtii iyo laga dawaro la yiraahdo inta aan ka kala tagin waxa dhacday marka gudigaas si gudigan aan idin sheegayo in ilaahay qays iyo raggi horaa salaxay maadaama nimankan waqafka iyo gudigan ay saaxiibo yihiin ay wada shaqaynayaan waqafku waxay iska dhigaan inay dhexdhexaad ka yihiin anigu shakhsiyan ninka leeyahay Mustafa Xaaji Ismaaciil hortiisana waan ka sheegay haduu ii yimaado ama aan u tago anigu shakhsiyan baan u tagay oo ku iri walaalow nin wadaad aad tahay meeshana waad aragtaa iyo dhinacay u socoto ma wax ka qabat afkiisa ninkaas wuxuu igu yiri anigu idin lama joogo doorashadiinana kama warhayo ee ha ii sheegin buu igu yiri dad badan baa u tagay sidaas uu qof walba ku yiraahdaa marka Mustafa Xaaji Ismaaciil waxa dhacday marka sanadkii hore inuu bilaabo inuu qabiilkiisana la shiro oo habeenkiina qabiilkiisa la jiro 3 saac habeenimo wax 9 saac habeenimo ama 3 habeenimo waxa u taqaanaan dadku markay hurdaan maalinkiina jamcaha inuu is oohisiyo ayay walaalayaal ay dhacday marka waxaan marka rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego masaajidkii hadda niman baa looga yeeray wadamada kan Scandinavianka inay dib u heshiisiin ka sameeyaan labadii dhinac mid soo dabacay ma jiro qir iyo qir baan la kala taagan yahay marka waxa igu maqaala hadda in policy cusub ay sameeyeen ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan u sheegaynaa arintaas policygaas muxuu yahay 20,000 oo medlan ayay tawfiiq leedahay si groupkii markii horeba looga buriyay oo dacwadii ku guuleystay oo labadii gudiba la soo celiyay lacagteena la jaray jilbahana u dhigay tawfiiqo uu dhaqaaqi waayay si groupka looga adkaado waxa la sameeyay sir cusub baan idin sheegaya ummadda Soomaaliyeed oo Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun iyo raggiisa kuwa gudiga hadda uu ku sheegayo oo khadar iyo ay ku jiraan iyo Cabdi Fataax Afgaab iyo khidda cusub
oo lagula dagaalamayo dadkii qabiilka lagu sheegayay oo khidada maxay tahay waxaa la maadaama 20 kun oo qof ay tahay 20 markas oo Norway ku yaala aynu kun siino 20 markas marka loo qabiyo min kun waa 20 kun tawfiiq zira u soo haraysa Soomaha marka ha xidhmay yiraahdeen sidaas ay go'aan ku gaareen maadaama maxkamaddu ayna cidna u xukumaynin isaguna ha xidhmo inaguna maraakista kunka qof ee aynu ku darsanay lacagta ayay inoo soo shubay jeebabkaynu ku shubanaynaa ummadda Soomaaliyeed arrintaas aan u soo bandhigaynaa waa in laga hortagaa arrintaas ummadda Soomaaliyeed waa inay ka hortagaan ugu dambeynna waxaan rabaa wax yar inaan ka xuso mobilka kan ayuu igaga jiraa waxaan idin tusiraa clip maanta ugu dambeysay masaajidkii Quba gacan qaad baa ka dhacay waana la isku dagaalamay maxamed bocor ninka la yiraahdo iyo xuseen ayaa arrintaas soo jeediyay waana la bilaabay raxma culture center oo ku yaala Barum ayaa kunkii ugu horeeyay lagu bilaabay oo xuseen furtay xaggana waxaa furtay center os drawback iyo first b bocor oo 5 sano ay u shaqeynaysay ayaa isagana kunkii labaad lagu tijaabiyay way bilaabatay kunkii saddexaad waxaa loo diray ninka leeyahay Ismaaciil oo nin iidoor ah oo keligii 25 sano ku shaqeysanayay daraman oo keligii ku shaqeysta daraman Umar bin Khattab meesha markaska ay u bixiyaan oo masaajid dhimaayay waxaa kaloo lagu tijaabiyay aadan Cabdullaahi Diriya waqafka uu leeyahay ku yaala masaajidka ku yaala Trondheim baa loo diray already qof walow Soomaaliyeed aniguna berri waan tijaabinayaa 7500 Bruno Sinwac waxaa dhahdaa mimbarkaygii ma la siibay oo ma meel kale lagu daray mase wali waan ku jiraa sababtay tahay waa critic arrintaanu haddaan laga hortagin labada bilood ee soo socota go'aankaas la qaatay haddii la noolaado oo naftu ilaahay lagu daayo 2020ka haddii la gaaro waxaad arki doontaan tawfiiq oo 500 qof oo medlam ka badan mimbar ka badan aan haysan 500na dad gaar ah ay ku shaqaysanayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed leenahay marka war qabiil waxba inoo tari maaye wakaas lugaha inaga wada jaray inta waxaan la iska daayo maxkamadda ha la soo celiyo saaxiga ha la keeno runtana ha la isu sheego waxaan arkayay Shiina Cabdiraxmaan Shiino oo leh lacagtii baan soo deynayaa adeer waxaan leenahay Cabdiraxmaan Shiino ma soo deyn kartid lacagtaas dawladda Norwayna annaga u sheegayna lacagtaas way xanibnaanaysaa ilaa ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiso meesha tan sidaas ay u xirmaysaa waxaan ummadda Soomaaliyeed marka u sheegaynaa shakhsiyaadka marka masaajidku uu ka dagila yahay gadaal haya ayaan ugu dambeyn idin sheegayaa iyo magacyadooda iyo cidda ay u shaqeeyaan iyo ujeedada ay leeyihiin ayaan ugu dambeyntii idin sheegi doonaa anoo soo gabagabeynaya haddii ilaahay yiraahdo Tawfiiq Islamic Center dadka uu xiran yahay oo uu ka shaqeyn la yahay waa 10 nin ay waqafka ah iyo dad banaanka ka jooga laakiin banaanka ka maamula ragga marka banaanka ka maamula ayaynu marka hore sheegaynaa inta kale waqafka waa taqaanaan cajaladan ayaa dib u rogi doontaan haddii ilaahay yiraahdo علي محمد صالح بقى وقف كوجه الرية مصطفى حاج إسماعيل آدم معو فؤاد قبيلي برالة محمد قريولي محمد بعر محمد رقانة محمود حاج إبراهيم إيو حسن عبد الموصل حسن مذوبي طبعا كاسنين وطبعا كل يقانو ومساجد كبربورية إسلام مركان بابية أفر كمد عنا guriga ku xigay dumiyeen waa qoryoolay maxamed qoryoolay buraale fuad gabilay iyo ninka leeyahay aadan macow intaas 10 kaanin halkaas ay ku yaalaan 10 la mid ah ayaan idin tirinayaa oo ragga masaajidka gadaal haya oo uu dhaqaaqi la yahay kow waxa ka ah
faysal gooxsade cusmaan bahdoon diiriye guure diiriye luga dheere bila cali fu'aad gabiiley ninka la yiraahdo zakariya indha guduud cabdikariim axmed qare maxamuud xaaji ibraahim iyo ninka la yiraahdo axmed abuukar cumar cadaani 10 nin oo qaybna guddiga waqafka ay ku jiraan qaybna ay bannaanka ka yihiin laakiin si rasmi ah ay u maamulaan ayaa masaajidka hadduu xirmo ummadda Soomaaliyeed ay weydiinaysaa ragga marka shabaabka u shaqeeya ayaan halkan marka ka tirinaynaa waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Axmed Sheekh Khaliif oo sirdoonka Etoobiyana u shaqeeya sirdoonka oromadana u shaqeeya tigreegana u shaqeeya kooxda ONLF ujeedda xun ee isdhiibtay oromada Etoobiya jawaasiista waana u shaqeeya waxaa ka mid ah ragga shabaabka u shaqeeya ninka la yiraahdo Barre waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Diiriye Guuriye waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Mahad waxaa ka mid ah bila cali waxaa ka mid ah mawlid oo waliba leenahay adeer mawlidow mu'adinimadkiina lacag waad ku weyday masaajidkiina waa ka xirmay ciise riyoola tahay ciise riyoole riyaha garowe wax u raacay laayiina riyaha garowe aad raacaysa hadii ilaahay yiraahdo riyaha garowe iyo geed timirkii ninka la yiraahdo farola afu waleenjo kuwaasaad raacaysa haddii alla yiraahdo insha Allah waxaa ka mid ah marka raggaas cabdikariim baa ka mid ah waxaa ka mid ah ragga shabaabka u shaqeeya ee meeshu ay ka degilaadahay ninka la yiraahdo Axmed Qare waana mahadsantiin waan wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa walaalkiin Axmed Nuur Sheekh Cabdullaahi nin dhalinyaro oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada isla markaana ah freelance journalist soo gudbiya macluumaadka waxaan ummadda Soomaaliyeed weydiisanaynaa dadkii macluumaad xasaasi ah soo gudbinaya hanoo soo dhiibo annaga YouTube iyo u furanay Facebook annaguna waxaan nahay waxaan aaminsanahay wax la freedom of expression ayaan aaminsanahay waxaan ka danqanaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay anigu qabyaaladiista ma ihi dadka qabiilka ku shaqaystana ma ihi tawfiiq inaan wax ku dara mooye wax kama qaado anigu masaajid iyo qabri waa isku mid waxba lagu daraa waxba lagama qaado dad baa wadamadan waxay u joogaan hadda ninka la Barre isagoo shabaab oo la wada og yahay ayuu marna muqaaxi xoog ku shitaa marna dhaqmadu qaata marna isagoo laa yaktub walaa yaqra ayuu caruurta u dhigaa waxaan leenahay Barrow iskaga tag meeshan waxba kuma yaale shabaab baa tahay daacish baa tahay gacantana ka qabanayna annaga gacanta kuula tagaynaa ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo gudbinayaa weerarkii maalinkii dhaweyd la ii geystay wiigii hore booliisku way soo xaqiijiyeen 3 nin baana ka dambeysay 3duna waxay kala yihiin faysal gooxsade Barre ciidagale iyo zakariya indha guduud booliiskana iga soo gaaray iyaga oo dil qorshaysan ii diyaariyay marka waana u mahad celinayaa booliiska wadankana waxay ugu wargeliyeen waan soo dhamaysanay warbixintii hawshiina way socotaa laakiin aduu firi baad u tahay waad sheegi kartaa baa la yiri marka maxaan u qarinaynaa qof nafteena duulaan ku ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u soo bandhigaynaa 3 nin habeen bishaan ay 3 tahay hadda dhamaadka ah ayay weerar igu qaadeen
وانا كبدبادي قابك اي ويرنا هلكا كان كشيغي مايو وادنا مهسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته